kaftan aan xajiniyo weerku xagan lahayno wariyayaal la soo xulay xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeelde siyaasadda ku xeelde daqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen waayahay waxaana wanaagsan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan halka aad nagala socotaan waa TV-gayaga magaalada Minneapolis iyo waliba St. Paul waa STN Somali Television Network ee xaruntiisa magaalada Minneapolis haddaba waxaad nooga barateen waa kaftankii siyaasadda haddaba bal maanta Ali Xaraare ayaanu weydiin doonaa bal wuxuu isku soo dowraday iyo xaaladdu halkay ka degayso علي سودة أدبر ما سنتها يعني ياسيرو إنه وكفى إذا سنة وقت عيان هروس عنيه بلا عرار وياه أن وحنكون بلا بدنا دولة فضرة كالصومالية هي لكن يضم مقدشة شكت معها يضم مينيسوتا شكت هل نوقتي هي أن وحالك يمد وزير كأرمها دبدة صوماليا أحمد عود من الله يرحمه أما أحمد عيسى عود وهو سفير وهنشري مقالة واشنطن horta aan waxaan qabaa marka ugu horeysa dawladda farmaajo wali wasiirkii arrimaha dibadda ma helin wali waraadinaysa waayo waxay u qaateen wasiirka arrimaha dibadda inuu noqdo nin ciyaalka xaafadda nin ciyaalka xaafadayna kuma wanaagsana kama bixi karo hawshan waa hawl adag halkan buu yimi waxaan ka bilaabay hoolkii ugu horreeyay meeshii uu dadka ku qaabilayay faaruq baa horta cidbo ma marka maxaa keenay talo in loo ima waayo dadka reer Mareykan way ka duwan reer Soomaaliya reer Mareykan waxay aaminsan yihiin ninkii dadka musaafirinayay Soomaalida ee labada boqol loo geeyay Muqdisho ninkii ogolaaday saxeexay inuu ahaa Axmed Ciise Cawad isaga iyo Taabit labadan baa ka dambeeyay kaaga darane su'aasha marka la weydiiyo in dadka Mareykan way ogyihiin oo la yiraahdo jaal wasiir dadka wadiga birgi dhoofinayay ma dadkiiba haddana wasiir u tahay su'aasha jawaabteedii ayaa ku adag qofkana waxa la eegaa markuu run sheegayo yaasiin iyo markuu been sheegayo su'aasha aad weydiisay sidoo uga jawaabo marka jawaabtiisa ku tusaysa in aanu raali ka hayn in su'aasha la weydiiyo nin dhalinyaro baa weydiiyay oo yiri dad baad dhoofisay dadkii aad dhoofisay ee aad ogolaatay in Soomaaliya la musaafiriyo oo adduunyada kale safiiradooda aanay ogolayn ayaa laakiin aad dadka ku furtay wuxuu sameeyay in dadkii shan iyo 20 iyo boqol loo qabto xamar laga dijiyo marka cawaaqib xumada meelan mas'uul ka ahayn dadkii aad dhoofisana mid kamida ayaa ku dhintay qaraxii ka dhacay Soobe marka wasiirku su'aasha dadka maadiga ogolaaday in la dhoofiyo xoog ma saarine ninka dhintay buu xoog saaray ninkaas ma dhiman buu ma wuxuu ku leeyahay su'aasha haddii aan isku dayo dadka aan leeyahay waad dhoofis haddii aan ka jawaabo aan isku dayo waxay qaadanaysaa waqti dheer ee bal idinku ka taliya maxaan sameeyaa yaad kala tashanaysaa su'aashaada haddana marka wuxuu isku qaaday qofka la dilay waa beenbuul lama dilin cidna xamarana joogay ninka meesha ku dhintay halkan ka tegay niyow dan kuwa ka qaalisan baaba inaga dhintay hadalkiisa soo dhigmaya bal marka hore si ay hadalkiisa aadka maartay hadal jilicsan oo wasiir arrimaha dibadda aan ku hadleen ayaynu dadka tusaynaa marka marxatigeeda daawasho wanaagsan ugu dambaysa nin baa wuxuu ka hadlay tarxiilka arinta tarxiilka 2 sano ka hadlay ninkan dhalinyarada waxaan u marayay 2 sano kadib wadanka yimid meel aan uga hadlin ma jirto haddaan dabcan inaan ka hadlana waxay ugu qaadanaysaa 3 saac oo kale marka taliyo idinku maxaan sameeyaa waxaan se kaliya u sheegayaa arinta uu yiri dhalinyarada qaar baa ku dhintay qaraxii 14 ka arin xaqiiqa ma ninka dhalinyarada nooma u sheegin qofka ku dhintay magaciisa laakiin hadduu nin dhalinyaro oo wadankiisii lagu celiyay ku dhintay xataa qarax haday jirto dad kale oo Soomaaliyeed oo madax leh oo aqoonyahan leh oo arday waxbarasho leh ayaa ku dhintay Soomaaliya jooga Soomaaliya ka soo tagay ayaa ku dhintay wasiirka hore arrimaha dibadda Yusuf Garaad nin dheeranay buu hayo dawladdu ka dheeray
marka shaqadiisu Ha. waxay isaga badnayd Ha. faataadhug iyo beenbeen iyo ruwaayado iyo safro iyo magaranaysaa istusnimo iyo caynkaas u badnayd Ha. kana axmed ciise cawad Ha. nin beer bisil kala goyn karaya maaha Waa isku hurdaada. kii horaaba orordayey laba qofoo soomaaliya Ha. iska daa laba gaala ah Ha. waxba ma sheegi karo wasaaraddaasi Ha. weli ninkeedii ma helin Wala raadinaya. waa dambaska Wala bala garan kara. ha farmaajo Ha. arrinkaa Waa ku dhiiqday. aad buu ugu khasaaray Ha. ummadda soomaaliyeedna Ha. weli waxaan aaminsanahay Ha. arrimo dabadeed May hayaan. inaan hiigsan karayn Wasiirkaas waa banaan ha arrimaheeda gudaha iska wareegto yahay. waanu ka gudbi doonaa Haye. waxaanu tegi doonaa Ha. biyo la-aan ka jirta magaalada hargeysa Ha. ha hargeysa waa caasimadda somalilan Ha. laakiin xaafada qaarkood Ha. ayaan biyaba aragba Biyo ma arkaan. oo booyado iyo dameero iyo ku dhaansada War ma xidhibaatada. ha Haye. dhibaatadaasi Ha. waxaa keenay lacagtii loogu talagalay oo la cunay Lacagta waa la cunay. oo la cunay waxa la cunay Ha. oo aynu dadka shacabka reer somaliland u sheegaynaa Ha. 370 milyan oo dollarka maraykanka ah Inna lillahi. ayaa Wala diji. dig laga siiyey Dadkina biyo la'aan baa haysa. haraada hor dhintaan Shaqada marka eeg la'aan. somaliland Ha. waa dal qani ah Ha. dadkiisana ay gaajo u dhimanaya haraad Bal dadka ayaga. waa dal qani ah Ha. oo golahooda wasiiradu Wasiiradu. markaad eegtid waxaad moodaysaa Waa wada naxeen. wasiiradii ruushia niman dhaadheer oo wada xoog la suud sita ah Boorsani sitaa. dadka gudaha markaad geshid Ha. Gaajo. in dab la saarin baad moodaysaa Inna lillahi. Waa gubtay. ah markaasaa nin waliba cadhadii markuu arkay wadankii iyo shaqalaantii ay mushil marduuf qaadanaya oo qaada Wasiilosiinaya. isloo siinaya Warqaadkeeda iska cunay. marka waxa weeye Ha. mashruucan Ah. ayaanu eeginaa wasiirka arrimaha biyaha qaabilsan Biyaha qaabilsan. salmaan cali koore la yidhahdo Ah. ayaa markii ugu horreysay u sheegay reer hargeysa Ah. inaan wax biyo u soo socda aanay jirin Ma jiraan. Ha. Ha ku tashanin iyo. taa niyadda ka saaray buu yidhi Haye. waxaa la isku hayay markii hore Ah. oo lagu madadaalinayay Ah. ilaa sanadkii 2011 2012 dadka Ha. biyuhu Ah. waxay ka iman doonaan Ah. jidka hebel mise jidkaasuu ka iman doonaa mise xagganudi kaga iman doonaa Waxna xagga ayaan la reer bisku haystay. marka waxay lahaayeen Ah, reerka waliba ayaa buurta ayaan laga soo dejinay luuqaha laga soo Luuqa dejiyay reerka xagga loo soo mariyo. laakiin salebaan wuxuu sheegay Ah. inaan wax luuq ka imanaya Ma jiraan. iyo wax halkaa ka imanaya Ah. midna aana jirin Dadka waa la wareeriyay. bal marka ugu horeysa intaynaan sheegin Ah. kharashka oo aan u dhabagalay Ha. saleebaan Ha. Wasiirka. wasiirka Ah. cali koore Ah. aynu marka hore dhegeysano Ha. horta inta aan wadadaba laga hadlin horta meesha biyo ma jiraan mise ma jiraan haddaan wasiirkii wasaaradda biyaha ahay waxaan idin leeyahay biyo hargeysa la keenaa ma jiraan waaye Walaakan waa deeri. mashruuca biyo ballaarinta loo yaqaano Ah. ama biyo gelintu Gelintu. waa meel la yidhaahdo xumba weyne Xumbo weyne. ha Haye. adu waxaa taqinaa laga yaabaa geed deeble Geed deeble. Ah. Hargeysa weliga ma tegin. laakiin reer hargeysa ma tihin Ah. sorry geed deeble Ah. ayaa marka hore biyuhu ka iman Waa jiray saase. marka xaafado cayiman Ha. ayuun bay noqotay in intaas uu biyaha gaarhaan Biyo gaaraan. Haye. marka mashruucan la sameeyey Ah. ee biyogelinta ee xumba weyne la yidhaahdo Ha. ayaan eegi doonaa kharashka baxay. ku baxay Haye. ilaa iyo sanadkii 2011 Haye. diyaar ma haystaa qalin Ha. aad lacagtii la xisaabisay Ha. Lacag badan weeye laakiin saan u xisaamin doona. Haye haye. Waa isku wad. waayahay Haye. waxaa loogu tabarucay markii ugu horreysay Ah. 153 milyan oo dollarka maraykanka Mareykanka. Haye. UAE Ah. ama imaaraadka carabtu Ah. waxay siiyeen Ah. 30 milyan oo dollar 30 milyan oo dollar. ha Haye. EU-du Ha. ama midooda Yurub Ha. waxay siiyeen 27 milyan Milyan. dhibic shan Waa waree. adigu 28 milyan ba iska dhig Haye. sanadkii 2011 Ha. 460 milyan Milyan. oo ayaa loogu talagalay 9 mashruuc ama 9 magaalo Ha. oo hargeysa ka mid tahay Ka mid tahay. hargeysa waxaa la siiyey Ha. 8 milyan iyo badh Biyaha kaliya. biyaha keliya La anaga wax aragnay. Haye. waayahay somaliland development fund kuwa la yidhahdo ama Ah, SDF SDF. sanadkii 2012 Ha. ilaa iyo 16 Ha. mashruuca biyogelinta ee hargeysa Hargeysa. waxay ku bixiyeen 28 milyan oo dollar Waa waree. War waa la dhergay. waddanka jarmalka Ha. ayaa siiyey 23 milyan oo dollar Oo biyo gelina. oo biyogelina Haye. shirkadda coca cola Coca-Cola. ee hargeysa Ee Hargeysa. ayaa iyana itaalkeeda Ha. 5 milyan farta ka War saartay milyan shanta ka saartay. ha Kulle iyo bilaa halkaa ka soo baxay. WB Ha. ama World Bank Ha. ayaa waxay siiyeen Ha. 6 milyan oo dollar
oo biyagelina haddana qayl ay ku dhifteen madaxdii oo lacagtaas oo nagu yartay bay yidhahdeen waraaqay qorteen SDF Somaliland Development Fund ayaa mar kale ugu celisay 10 milyan iyo badh dabeetana EUdii ba haddana qayla dhaan kale u direen marka waxay siiyeen 15 milyan oo dollar totalkii wuxuu isku noqday 370 milyan oo dollar dadka Hargeysa ku biyaliyay ee ku dhibaataysan dawladda ha weydiiyaan 370 milyan meesha geeyaan meesha laga lacageystay ya wasaaraddan caadi mid walba 9 villa intuu ka dhistay ayuu bangiga imaaraadka lacag dhistay marka waa madax dadkeedii laynaysa oo caalamka u soo baryaysa oo baryadii iyo iyaboho la siiyey iyaga ay meel ku shubanayaan marka 370 milyan hadday 300 cun lahaayeen 300 milyan haddii Hargeysa la gelin lahaa Hargeysa Paris ba kan lahayd haddii intaa ka badan ay gelin lahaayeen Ceergaabo Burco Boorame Laascaanood waxay noqon lahayd reer walba in gurigiisa ay biyuhu ugu tagaan marka cadowga ummadda Soomaaliyeed ma aha dawladda Ethiopia cadowga ummadda Soomaaliyeed ma aha dawladda Kenya cadowga ummadda Soomaaliyeed waa inta madaxda u ah haddii run la doonayo nimanka madaxda waynu ka gudbaynaa saddexdii maalmood u dambeysay ama aan idhaahdo afartii maalmood u dambeysay waxaa qaaligaroobay jaadkii ama qaadkii tegayay Somaliland sababta waxay tahay iyagu waxay leeyihiin dawladda Ethiopia ama Ethiopia xaggeeda ayuu ka qaaligaroobay kacdoonadan oromada iyo waxaasoo dhan marka wuxuu ka booday $5 $15 kor buu kacay ayuu tegey dadkiiba qaadka iibsan kari waayey waxay ku soo xoomeen xerihii qaadka sidii ari ku qamaamaya xareed meel ay jiifto dabeeto buuq bay sameeyeen dadka mudaharaad ballaaran ayay sameeyeen Hargeysa mudaharaadka waxay leeyihiin qaadka ha naloo jabiyo waa dadka aynu leenahay waa biyola'diin waa haraadantiin car ha sameeyaan maalin ay yidhaahdaan biyola'aan baa Hargeysa haysa biyola'aanta iyo cunto la'aanta raalli bay ku yihiin qaad la'aanta magaalada dhan bay gubayaan marka dadkii maxoolay isu bedeleenoo in caws loo dhigo maalin kasta oo cuno oo dabeetana uu yidhaha wax walba ay dhayin isagoo reerkiisii ciyaalkiisii ay biyela yihiin marka qoyskiisa oo biyela dan kama leh laakiin xoog buu saarayaa haddii marduufka uu soo waayo dabeetana arrintaas waxay u fiday meesha la yidhaahdo Hargeysa Burco ayay iyadana gaadhay marka waxay ku tashadeen aakhirkii dad baa haddana $15 siisanaya oo dawladda u shaqeeyo oo lacag haysta xogaaga helaya marka waxay yidhahdeen aynu sameyno qof kastoo qaadka ku dhiirrado iibsada markuu soo iibsado aynu ka qaadno dabeetana waa la boobay bililqadi qaadka marka qofka soo iibsadaa imika wuxuu bilaabay inuu hoos geliyo qaadka qarsado si aan loo arag moogta waaya telefoonno badan ayaa igu soo dhacaya 4 cisho u dambeysay oo Hargeysa iyo Burco iga imanaya oo asxaab fara badan oo barnaamijkan kaftanka siyaasadda ayay baadhayeen dabeeto telefoonadii ayaa qaarkood sheekooyinkan aan suudaarsanay ayaan doonaya in barnaamijkan kusoo gudbiyo waayahay magaalada Burco telefoonkii iga yimid inaan igala hadlayay dhinaca qaadka aakhirkii wuxuu weydiiyey su'aal aniga igu wareerisay madaxayga oo aan la yaabay 3 cisho ayaad moodaa in dunidaba loo soo saaray wuxuu yidhi calow ma dhabbaa in madaxweynihii Cuba Fidel Castro uu dhintay marka 4 cisho qaadka la joojiyey ayuu ogaaday Fidel Castro inuu dhintay markaas wax badan de akhriyo baarbaari moogta ninka taasana dhex martay nin aan xaas leh oo isaguna degan magaalada Hargeysa oo 2 ciyaalo leh ayaa isaguna maalmihii u dambeeyay la sheegsanay marka wuxuu igu yidhi maalintii ugu dambeysay niyo calow xaaskayga iyo 2 wiil aan dhalay dad ka wanaagsan weliga ma arag markaasaan ku yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi dee 4 cishaan isnuqinay marka 4 cisho weliba gabadha aan qabo naa ka wanaagsan lahayn maayo marka 25 sannadood muu ogeyn xaaskiisu inay fiican tahay inay xun tahay waayo dee isma arki jiray waa maruu ka dhacsan yahay iyo maruu fadhiyo 4 maalmood ayin bay gabadhii aad u sheekaysteen markaasuu ka yaabay dee gabadhii wanaageeda waxaan xasuustay sheeko kaloo Djibouti ka dhacday 3 cisho ayaa qaadka laga joojiyey reer Djibouti
markaa reer jabuuti ayaa yaabay barnaamijka la soo baxay marka mid baa idaacad dhegeystay idaacaddu wuxuu ka maqlay ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti markaasuu ku leeyahay warniyo kaalay dadkina waa waalin ismaaciil baa meesha wili haysta ma idaacaddana waalin buu mise aniga ismaaciilkii berigii aynu miyuu haystaa weli meesha waxaan kaloo xasuustaa sheekooyinka qaadka jabuuti ayaa xanaaqday oo madaxweynaha iyo dowladda iyo kacdoon baa sameynaba mudaharaad bay sameeyeen xeerjaadii bay isugu ereyadeedi iyo downtownka ayaa mudaharaad markaa dowladdu markay aragtay in dadkii mudaharaadii ay badan yihiin ayn bay 2 diyaaradood qaada oo xilliga diyaaradu iman jireen ka hora ayn bay keeneen dadkii oo la dowladdu ha dhacdo dowladdu sin ha samayso oo boordo wata ayn baa dhigta loo sheego la yidhi waar uu yimid maxay jaad saacadu ma la eegun والله والله ويا لبض يا رجل بوركم بديانو شات كم بالسكوا مظاهرات في جيبوتي مظاهرات ما سمعي كران mid ay dawladda ku kacsan yihiin iyo mid dawladda ay ku amaanayaan toona ma sameyn karaan jaadka waa dhaafayade jaadka ugu daran marka waa mujtamac jaadka loo xareeyay jaadkaas ay ma loo xareeyay hargeysa imka qaadku uu furfurmay oo sidiisii baad moodaa in lagu soo celinayo way hadii kale waxa badanaya dadkii faraha badnaa ee maqaayadaha fadhiisanayay ee cuntada cunayay ee Muuse bixi iyo sheekooyinkiisa soo hadal qaaday si aan la isugu iman waa in godadkii lagu noqdaa Muuse ka daba tagayna taasna waa taa wallahi waa dhibaato diinka bahalka la yiraahdo ama diinka oo tiin dhawid bal laha hal soo qabta la iibiyo sheekooyinka diinka ku saabsan waxa dadku qaaraamisan yihiin in la siisanayo halkii diin 25,000 ilaa 50,000 inta u dhaxayso إذا أي هذا الدين لإيبيي أو إذا كإيبستي لما هيو وايه واحد يستهدبه سومالان أي حكومة وحق عنده كسولكتي سد حويل يلا ببح صدي وأي كل حكومتي صد حسن نضاد كذب مركي اللي وقبتي قال يقول دين كست دين بيبودي بقى مركي الدين كان محكمة على كان دين كان واحد اللي حكومة إن الله يوم مقالة هرجيسة طول ما يركل لودي بيا mise charge-ka xaakimka dawladda haynaysa diinka oo cawskiisa qabta saddexdiina inaan waxa loo diray 3 years ayaa loo diray bal markuu u horeysa maxkamadii iyo diinka aan daawan Cabdicasiis Xaamud Maxamed ina ana Maxamed oo daadiisu tahay 22 dambiilaha labaad Sidiiq Usmaan Cali ina Faaduma Ciise oo daadiisu tahay 22 jir dambiilaha saddexaad Usmaan Umar Yuusuf ina Muumina Cabdillaahi oo daadiisu tahay 22 jir dambiilaha afraad Cabdirasaaq Faarax Ciise oo maqana iyo dambiilaha shanaad Cabdicasiis Mooga Diiriye oo maqana oo si wada jira ugu gafay xeer lambar 69 Public 2015 xeerka xakamaynta iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta Soomaaliland qodobka 27aad qodobka 8aad xarafka koowaad faqradda ta'ja waxa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xariga ciqaabeed oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo la socda midkiiba maadaama dembigan ay qirteen laba xarigu waxa uga bilaamayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 31 bishii koowaad 2018 hargeysa yaasiin wax dhex maray oo ka horimanaya sometimes nin ka cunay $100,000 Mareykanka ka cunay oo aan xidhi karin waxa ka horimanaya nin dilayo lagu leeyahay waantii baa socota in ay magti iska bixiyaan reer hebel ayaa agtaas shaak u cabay nin diin soo qabsaday 3 sanadood baa ayaa la siinay marka waxay ka mid tahay sharciyada inta badan sidii loo doono loo dhigay marka diinkiina waa artay sama waxaan ku tusayaa laascaanood ayaa wiil baa diin soo qabsaday gurigii buu dhigtay baalka telefoon baa la dul saaraayo telefoonkaas shaddan uu damayaaba diinka marka la kor saaro telefoonka damaya kaas waa kugu qaalisan kontonka kun la siinay kulay yarkii guriga buu keenayo aroor kasta diinka buu telefoonkiisa saaraa
baalku waa shaqaynaya buu ku leeyahay haye yarkiiba kooma galay markaa haye laftiisa diinkii uu taataabanayay ayuu cillad caafimaad ka qaaday wax loola orday cusbitaalka haddii ilaahay ku riyahay hargeysa laascanood waa la dhafiyey aabihii oo ka hadlaya oo leh yarkii waa liitaa oo diinkaasaa galaaftay isna aynu daawano ilaan adeeru ahay oo xooluhu isugu kaaya jireen wiilkii 2 casho markuu joogay baa waxaa lug iyo gacan baa sidii bararisoo nabar ka soo fuuray hadduu ka soo fuurayna markii dambe waa wixii way dilaaceen kaarkii markuu ay ka dilaaceen wuu yar seexday hadduu yar seexday gacantii baa itaal beeshad oo haddada baktiya haddii uu dhowr casho ka dambaysa joogay haddana ninkii waa waasho waa seexan waayey habeenkii wuu iska shahaadanayaa wuu iska wareegayaa waa shaydaanku naarayaa waa gariirayaa soqoshadu ma hay waaba ya yarka waa galaaftay waa ku daayay yarka soo ku daayay sama ilaahay isagana caafimaad hasiyo amiin waayahay sheekooyinka diindiinka waxaa jirta dalkan Mareykanka waxa laga diraa lacag beelala oo loo diro ehelada iyo qaraabada nin walba dahabshi ama xawaaladaha kale uu tagaa sama xawaalada diinka ayaa imika furan Minneapolis dadka diindiinka soo qabsada ee guryaha ku haysta ayaa telefoon eheladu soo diray xilliin diinka ilaa cagu leeyahay bahalkan ma ilaalin karayne habeenkii dhan baan soo jeednaa isna habeenkii wuu socdaa si aan lacagta u gafin biil annaga iyo diinka noo soo dira diinkuna waa 100 kale waa 200 marka lacagta Soomaaliland waa tiri taajka iyo maxaa la rabaa wax lagu diro ala iga yaqaan saadka iyo 100 ka yar laguma soo diri karo 100 ka yar laguma diro konta birga konta baa la diri 50 iyo 20 iyo 10 iyo 100 ba hadda ugu yar waxa sicir bararka qayb ka tahay 100 kaasi qolada diinku faa'iideeyay waa 100 waxa ka yaray loo diray waa 100 ki diinkan aan diinkan halka kaga baxno boosaasan ku geynay marka boosaas dekadii macmalka ahayd oo dhererkeedu ahaa 316 mitir oo ciid ah iyo container ciid lagu shubay ayaa shacabkii reer boosaaso ay ku guuleysteen oo ay gaadheen doonidii soo caariday inay alaabtii iyo baabuurta ay siday ay ka guraan baabuurta laga soo guray ilaa iyo 50 baabuur weey qiimaha waxa lagu qiimeeyay 8 milyan oo dollar alaabta meesha saaray qalabka lagu gurayay wiishashka iyo cagafyada sahalay dawlad la'aan in iyagu ay banaanka keenaan waxa weeyaan qalabkii lagaga shaqeynayay wadada ceel daahir ee ceergaabo ilaa ceel daahir isku ayaa u gurmatay oo qalabyada oo dhan meesha geysay qoladaasna aad iyo aad ay u mahadsan shacabkii isu tagay ee midoobay ee xooggoodii iyo dididkoodii ku keenay in ay problemkii xalliyaan iyaguna ammaan fara badan ayay leeyihiin dawladda ama maamul goboleedka Puntland ayaa iyaguna ka daayay in canshuur laga qaado maadaama ay sameeyeen wanaag fara badan iyo gurmad fara badan oo ololahoodii ay ku guuleystaan in haddana la yidhaahdo xisaabta kusoo shuba in laga daayo maamulka Puntland iyana ammaan bay ku leeyihiin laakiin madaxweynuhu ammaan inagama mudna madaxweynuhu shacabkiisu gooni ula dagaalamayaayo waxaa la weydiiyey arrinta tukaraq oo Somaliland qabsatay shacabka reer Puntland aad bay u hadalhayaan we don't care shacabkaas sheegaysan buu ma naqaaninba anagu uma shaqeynaba shacabka hadalkiisii yaan ka tarjumin aanu daawano dastuurka Puntland ayaa faraya dalka in la difaaco dadka shacabkaana anagu shacabka warkiisa kuma shaqeyno dawladdu kuma shaqeyso waa mahadsantihiin shacabka ma yaqaan iyo madaxweynihii ugu horeeyay ee yiraahdo shacabkayga uma joojiyo ama ma dhageysto wiil waa ninka odayga waa ninkaas shacab dadka reer Boosaaso waxay gaadheen himiladoodii ahayd in haddii ay iyagu isku tashadaan oo aanay dawladda iyo maamulku xidhnaan in ay wax samaysan karayaan waxay dhabarjab ku noqotay shirkadda DP World oo isha ka eeganaysay oo aan caawimo siinin oo aan gargaar iyo gacan siinin ayaa indhahooda shana alaabta halkaa laga soo dejiyay su'aal baa daba taagan dekedan macmalkii miyaa la burburinayaa mise dadka samaystay ayaa wax ka soo dejisan doona waa su'aal taagan oo maamulka Puntlandna iyo shirkadda DP World oo wada shaqeynaya aan raalli ka ahaan doonin in dekedan macmalkii ay sii jirto shacabka reer Boosaaso ama reer Bariga ayaan iyaguna raalli ka noqonaynin wixii ay ku taabeen in la burburiyo
waxay kale u arkaan in iyadu wax ay propertyga waxooda ay tahay isla markaana dekadii lagu wareerinayay ee gurmud aan loo samaynin in markaa ay tan safetyga u fiican ama nabadgelyo inay kanstaan iyana waynu eegi doonaa meesha ay ku dambayso laakiin ammaan ballaaran ayaan isla barnaamijkan u marinaynaa dadka reer boosaaso weliba ilaa islaamihii shaaha u geynaya ragga shaqaynayay 2 injineer oo iyana ku jiray ragga habeen iyo maalin u soo jeeday dhalinyarada xoogga saaraysay ee nin waliba muruqiisa ugu deeqay dadkiisa waa arrin lagu dayan karayo oo tilmaamaysa ama aan garab dhigi karayno dowladda Turkiga markii inqilaabka lagu sameeyay Erdogan raggii kaarayaasha isu dhigay ee la ajliga madaxweynaha iyo dowladda iyo jiritaankeeda awgeed annaga noomar oo hana la dilo ay shacabkaasi u dhigmaan shacabka kale ee lamida waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay ku daydaan dadka iyana aynu halkaa kaga baxno qodobka kale aan sii raacin doono ayaa wuxuu yahay suldaanka reer maakhir suldaan siciid suldaan cabdisalaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi oo salaanta iska qaadila arrin xidhiidh siyaasiyadeedna wuu jiri jiray laakiin imika waxa moodaa inuu xadhkaha goostay dhowaan ayuu guddoomiye axmed cali xaashi waxa uu tegey magaalada baran iyadoo halkaas ay saldhigu tahay suldaanka dabeetna wuxuu damcay inuu suldaanka soo salaamay dabeetna waxaa la yidhaha albaabkii suldaankii wuxuu yidhi raalliga ahaw ku qabil maayo dabeetna wuxuu iska tegey guri kale oo nin ay saaxiib yihiin uu markaasi la fadhiistay guddoomiyuhu wuxuu tegey hadaaftimo wuu soo noqday isla wuxuu ku soo noqday baran haddana wuxuu tiri bal sudaankii mar kale isyaarka sudaanka halkiisiiba ku adkaystay axmed iima soo geli karo guddoomiyuhu maxaa dhacay laakiin dagaalkaas muxuu ka bilaabay dad badan baan ogeyn oo ina daawanaya oo baran jooga dad badan baan ogeyn oo hadaaftimo jooga ama dad badan oo ka tirsan reer maakhir oo jooga magaalada aynu joogno ee minneapolis arrintu haddaba sidaa ku dhacday dhowaan ayaa cabdiweli maxamed algaas wuxuu guddoomiyaha baarlamaanka axmed cali xaashi ka codsaday in nabadoonno iyo cuqaal reerka ah loo keeno si uu ugala hadlo dhinaca amniga arrin ku saabsan oo ah buurta galgala in ciidamo loo sameeyo la dagaalama oo reer maakhir oo iyagu ka garab dagaalama ciidamada puntland dabeeto axmed cali xaashi caaqil iyo caaqil la-aanba odayaal buu u geeyey fara badan waa haabiyey wuxuu geeyey puntland buu geeyey xilligaa suldaan siciid suldaan cabdisalaan wuxuu joogay magaalada boosaaso lama tashan lama tixgelin dagaal hoose ayaa isagii cabdiweli aad moodaa inuu jiray dabeetna suldaanku wuxuu ka xanaaqay war bal cabdiweli siyaasadda iskuba fahmi weydee inankan daad ilmaadeerka tihiin ee guddoomiyaha ee adigu aad meesha geysay ee haddana ku dhaafdhaafiyo odayaal meelaha buuraha maraya iska soo qabsaday ee meesha geeyey arrintaas markaa waxay u baahan tahay in guddi loo saaro dhexdhexaadiya suldaanka dib heshiisiin iyo guddoomiyaha axmed cali xaashi waxaa kaloo ay danta ku jirtaa inta balorta cabdiweli inay marka hore intaan looba tegin inay labadooda isfahmaan dee inaynu labadoona isfahno iyo inaan anigu cabdiweli gooni u fahmo waxaa ka wanaagsan mar hadday siyaasad timaado inaynu isfahno oo go-aan qura oo midaysan aynu halkaa dee ugu tagno ninka odaga laakiin axmed cali xaashi waa inuu ka baxo isagu taladeena aynu gudbinayno in madaxweynuhu uu dhegta wax ugu sheego madaxweynaha waxaa u hadhay dhowr bilood marka lama horema cows jiraan suldaankunbaad agtiisa ku noqonaysa haddana dee markaa suldaanka mar kale intaad warqad hor dhigi lahayd ood odhan lahayd hawshii waxaa jirta baarlamaanka iminka dee waa inaad saaxiib la noqotaa arrinkaas waxaan rajaynayaa waxaa jira haddaba arrin kale inoo gudbi doonaa shariif xasan shariif aadan oo ah madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ama baaya bokol sida dadka qalu yaqaanaan ayaa iminka doonaya isagoona inuu ka qayb qaato arrimaha ku saabsan xeebaha iyo mashaariicda lagu wareejiyo ajaanibta wuxuu la tartamayaa baraawe iyo marka xeebaha u waaweyn marka wuxuu yiri adigu carabta ma isdhaafa oo no shiinaha la hadal shirkadii ugu horeysay ee Chinese ayay soo hor fadhiisteen
dabeetana waxay ka wada hadleen sidii dekad weyn loogu samayn lahaa Baraawe iyo Shabeellaha Hoose iyo mashaariic horumarineed oo loo sameeyo Baay iyo Bakool Shariif Xasan waa madaxweynaha aan wasiir male oo cid ku xigeen male isagu baa wada kaliya waa ninka ugu siyaasisan madax dhaqameed madax goboleedyada ama maamul goboleedyada Soomaalida shirkadda maalin buu tagaa bishii 2 jeer buu tagaa Baydhabo compound-ka markuu galo uu soo noqdaa isku soo sawira ninka odaga Shiinaha ayuu eegi doonaa marka bal mashaariicdaasi waxa ay keeni doonaan barnaamijyada soo socda ayaan ku hadli doonaa laakiin Shariifka oo aan Ingiriisi ku hadlin iyo af Carabi toonna ayaa dawladda Shiinaha markaas ag fadhiistaan waxa aad soo eg afka mayga iyo afka Shiinaha inka turjubaanka u ah ayaa marmar israawada labada af isku mid ah ma iska dhaxbax marna Shariif ka hadlayo af Chinese u eg ayuu ku hadlay Chinese kuna de koodi Chinese ka ku hadlay labada af xiriirka ka dhaxeeya ayuu isaguna barnaamijyada soo socda ku eegi doonaa barnaamijkeeni maanta intaas ayaan ku soo koobaya laakiin waxaan dadka ina daawanay u gudbin doonaa in ay ka daawan karayaan barnaamijkeenan telefishinka STN haddii ay kalena ay YouTube-kiisa Somali Television Network waxaan mar kale digniin u jeedinaynaa oo horena qaarkood looga joojiyay in ay qaataan amar la'aan iyagoo in weydiisan in ay isticmaalaan barnaamijka aynu hawsha dheer u galnay ee aan xoog saaray soo saaristiisa iyagoon idan naga qaadan in ay meeshooda gashadaan waxaan u jeedin doonaa inay ku soo socoto digniin lagaga xanibayo YouTube-kooda waxaad kala xiriiri kartaa marka haddaan ku celiyo Somali Television Network aad aad baad mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaadba halkaad nagala socoteen waa TV-gayga STN Somali Television Network waanigoo ah Yaasiin Ducaali waxaan kaga tegayaa sidaa yahee nabadgelyo kaftan aan xajiiniyo weer ku xagan lahayno wariyayaal la soo xulay xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe daqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen